هذا وانا عيدية لسويتنا عيدية شرياكو مكان قابي ونصو مشغولة جاني آواي سوم كده تاعا مكان يونفورم كاga الله كلها تاريخ تركي بركا وحيد غاد مريم تاريخ تركي بركا dad ku dhow 60 qof ayaa maanta u soo xirnay tababar la tababarayo qalabka loogu shaqeeyo habka dadka loo diiwaan geliyo doorashada lagu soo aadan ee bisha Juun 3keeda ee golaha deegaanka hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo in waa maalin weyn waa maalin farxad leh oo guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay mar labaad shalay waxay ahayd qalabkii noo yimid 112 bari gudigan u dhisnaa maantana waxaan xiraynaa dafcadii koowaad macallimiintii tareen gareen lahayd shaqaalihii dadka diiwaan gelin lahaa ومالين وين إن شاء الله تعالى ميديو هنا وحنرمنا إن شاء الله تعالى إنا ويرنا مر والبا عن مصممين إنه دعوي النوع عنه كلاه والدفع دي كوات وحكوا فيه دون تمد لبعض من صدحات أو ضد كاس أسكت ديارين دون إن معلمين ونقضان شقالة ترينجرين دونا أما قبل دونا ديوان جلد دوينه إن شاء الله تعالى ضل كان صومالي اللي يراهدو وضن كأنه وحوجه هيس الدور شقة في عضة مرحبا قلب كينا هينو معلمين تنا أمانت أصحرني قيبتي كوات training-ka qalabka sida loo isticmaalo dadka loo diiwaan geliyo si dadku si train gareeyaan waxa noo dhiman waa laba talaabo inaan dadka diiwaan gelino iyo inaan bishii Juun 3keeda ummadda ay u soo dareeraan inay madaxdooda golaha deegaanka doortaan dhowr wajiyo kala duwan waa soo marnay waa talaabo weyn oo shacbiga soo hoyatay waxa fariintan uga faa'iideysanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay isku diyaariyaan inay gaaray xilligii ay codkooda dhiiban lahaayeen xilligii qof walba qofka asaga uu arko inuu matali karo uu dooran lahaa waa soo xirmay albaabkii ahaa in ay madax iska timaado aan cid ay u yihiin damaanad aysan jirin gudigaanu shaqadii loo igmaday oo qaranka Soomaaliyeed u igmaday oo ahayd in shacbiga Soomaaliyeed lagu celiyo awoodda gacantooda laba istaag baan nooga dhiman inaan dadka diiwaan gelino iyo dadka inay codayaan إلى دورة سنبار